Marayaha hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay marayaha cusub ee wakaaladda dekedaha Somaliland loo soo magacaabay Cumar Abukar Jaamac iyo maraya ku-xigeenkii hore wakaaladda dekedaha Somaliland Cabdilaahi Xasan Mataan. Xafladani oo lagu qabtay xafiiska guud ee wakaaladda dekedaha Somaliland ku leeyahay magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba xubno kamid ah guddida Freesonka ee dekedda magaalada Berbera. waxaan halkaasi ugu horeyn ka hadlay marayaha guud ee hay'adda dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo isagu faahfaahin ka bixiyay xil wareejintaasi. waxaan halkan u fadhinaa xil wareejinta marayaha cusub ee marayuhu hore uu ku wareejinayo xilka. runtii hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland waa hay'adaha ugu miisaanka weyn dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. waa dhuunta Somaliland wax u soo maraan waa meesha u badan ee shaqaale Somaliland ay u shaqo tagaan. taasi waxay ku tusaysaa miisaanka iyo mugga ay leedahay shaqada ka socda dekedda. run ahaantii muddooyinkii u dambeeyey intii DP la wareegtay qaybta operationka shaqada wax badan baa iska bedelay iyo nidaamkii shaqo waana la casriyeeyey. maanta waxaynu u fadhinaa oo aynu u joognaa xil wareejinta labada maareeye ku-xigeen oo run ahaantii xil wareejintoodii horena ay muddo aan fogeyn ay ahayd ayaynu maanta halkan u fadhinaa sida ay nolosha bini'aadanku u leedahay isbeddel ee aanay garantiin u ahayn ayay maskabka iyo maamuuskuna u yihiin kuwo mar walba isbeddelaya. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba maraya ku-xigeenkii hore ee dekedda magaalada Berbera Bile Xir Saciid iyaguna halkaasi ku soo dhaweeyay maraya ku-xigeenka cusub ee dekedda loo soo magacaabay isla markaana kii horena sii sabootiyay. dekeddii ugu weyday qarankan aynu maanta joogno shirkan isugu nimaadno walabaadka runtii waxaan mahadnaqaynaa madaxda dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland oo hormoodka yahay Saciid oo runtii isbeddel weyn oo sanadla ah samaysay lala jaan qaaday isbeddelka geeska ka socda iyo ka gobolka iyo ka dekedda ka socda intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan sagootiyeynaa maaray ku-xigeenkii hore xilkuna waa sidaasoo xagga alluu ka dhammaada xagga allena wuu ka yimaadaa waxaa laga yaabaa berrina inay qoran tahay inuu ku soo noqdo sida cumarba maantana u joogo shalayna u joogay. waa kuu ducaynaynaa meel ka wanaagsanna waad helaysaa oo shaqo oo dhallinyara u tahay. maanta xafladdan aynu u joogno oo ah xil wareejinta labada maraye-xigeenkii hore Cabdilaahi iyo maraye-xigeenka cusub Cumar Abukar. runtii xafladdani waa xaflad weyn. ku-xigeenadu inta badan xaflad weyn looga sameeyo waxa tan loogu samaynayaa waa shaqada meesha taalla waa muhiimadda qaranka ay u leedahay hawsha labada mas-uul ay la kala wareegayaan. awgeed baynu maanta intaas xafladda saa u ballaaran ugu qabanqaabanay. marka hore dekeddu waa halbowlihii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dhaqaalaheedu u soo marayay. waxaan marka hore aad ugu hambalyaynayaa sidii horeba looga wada dhawaajiyey maamulka dekedda oo muddooyinkan dambe horumar aad iyo aad u dheer gaadhsiiyey dekedda. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maraya ku-xigeenka cusub ee wakaaladda dekedaha Somaliland oo horena maraya ku-xigeen uga soo noqday dekedda magaalada Berbera Cumar Abukar Jaamac oo isagu halkaasi kaga sheekeeyay dhacdooyin ku soo maray dekedda magaalada Berbera xilligii uu ahaa maraya ku-xigeenkii hore. waxaanu ka dalbaday guud ahaan dadweynihii ka soo qayb galay xafladdaasi xil wareejinta inay ugu duceeyaan xilkaasi inuu Ilaahay ku asturo. dekedda kuma cusbi shaqaalihii aan xukumayo markii hore un baa yaraaday laakiin waxaan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa taytalkaygu kordhiyey. markii hore maaraya ku-xigeenka dekedda Berbera ahay makana dekedaha Somaliland ayaan maaraya ku-xigeenka waxaan doonayaa inaan idiin sheego haddii shaqaalu yaraado hawshuna kale way yaraataa. hawl adag baan haysatay berigii hore dekeddan ay haysatay. waxaan doonayaa inaan laba qista idinla wadaago. mid waxay ahayd kolle saxaafadda way haysaa waana jecel maanta ku soo celiyaan. anigoo agtiro maarayuhu iga maqan yahay oo la dhajiro
ayaa markab ku gubtay dekadda bakhaarka warehouse-ka hortiisa cawsida oo la rabayo oo in fii iibaan la yidhaahdo ayaa gubtay dekeddaan joogaa waan soo cararay hawadaan ku haaftay hawada intaan ku soo ordayey ayaa silo noqodii baad ku dhacday waa waqtigii gaadhay ololka ka baxayey waxaan u qaatay marka cadaadaha laga sheekaynayo ololka ay soo sawraan cawskii baa cirka qabsaday haytayr buu taagan yahay markabku aad buu u dheer yahay labadii iigu dhowaa markaan markabkii u weynay ee midna madaxwaaxeedka ahaa ragga nagu sii xiga midna uu nin wakiilo ahaa waxay u idhaahdeen intay faashil soo baxeen gaara iga soo saareen markabka xadhkaa u go maraakiibta kale iyo doonyaha kale u gubaya maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v magaalada berbera